hadafyada aad u degsatay 2025 ma ka mid tahay in aad baratid luqadda Ingiriiska weliba kaliya aad isbartid aan kugu sii daray aad ku baratid qaab bilaash ah oo aan wax lacag ah lagaa rabin oo kaliya waxaad u baahan tahay ay tahay telefoonkaaga internet iyo go'aan haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay waan kuu hambalyeynaya maxaa yeele waxaa imaaday meeshii kugu habbooneed dhab ahaantii aniga videogan waqti badana iga galay research fara badan iyo isbarbardhig fara badan oo aan sameeyey kadib maanta waxaa kula wadaagi doonaa koorso aan isleeyahay waa koorsooyinka ugu fiican ee aad isku bari kartid luqadda Ingiriiska kaliya weliba qaab free ah sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa qaab aad isku bari kartid erayada oo aad ku xalin kartid mushkilada ah erayo badan aan aqaan ama isticmaalay sidoo kale qaybta ugu dambeysa video waxaan kula wadaagi doonaa application oo aad isticmaali kartid si aad u practicesid ku hadalka haddaba intro ayaa ku dheeraan fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir channel subscribe leh videoga la garay una share garay asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Ingiriiska haddana bilaawno videogeena koorsadana maanta idin la wadaagi doono waxay leedahay levels kala duwan laga soo bilaabo bilow ilaa advanced sidoo kale waxyaabaha koorsada ku fiican tahay waxaa ka mid ah cashir walba waxa uu leeyahay quiz cashir walba kadib waxaa gelaysaa imtixaan aad ku baroobeynaysa naftaada jawaabtana isla markii aad ka qaadanaysa intaas waxaa kusii dheer casharada waxay noqon doonaan imtixaane waa lesson 1 2 3 4 sidaas ku socon doonaan koorsada maanta idin wada waxaa bixisay VOA ama Voice of America waxaa laga yaabaa inaad taqaanin idaacadda waxay leedahay qayb af Soomaali ah sidoo kale waxay bixiyaan program ay dadka ku baraan luqadda Ingiriiska haddaba si aad u heshid kooraska waxaa soo furanaysaa Google ama any search engine oo telefoonkaaga ku jira kadib qaybta searchiga waxaa ku qoraysaa VOA Learning English kadib waa search garanaysaa okay kadib waxaa ku soo bixi doona website-kan website-ka aan raadinayna waa kana koorsada aan sheegayna waxay leedahay levelskan beginner level intermediate level podcast advanced level iyo lesson of the day aan ka bilaawna qaybta beginner levelka qaybta beginnerka waxaa ku sii jiro level kale qaybta markaa ku dhifatid wuxuu ku keeni doonaa wejigan let's learn English with Anna kan kaligiis waa koorso dhameystiran oo ilaa iyo 40 cashir ka kooban let's learn English level 1 sidoo kale eegana waa koorso kale oo dhameystiran level 2 sidoo kale ted ask a teacher macalinka weydii okay waxaa laga yaabaa markaa inaad su'aal isweydiinayso oo ah sidee ku ogaan karaa levelka markaas aniga igu habboon haddii aad tahay bilow oo Englishka aadan wax badan ka aqaanin ABC wax badan aysan ku dhaafin waxaan kugula talinayaa inaad ka bilowdid let's learn English level 1 inaad ka bilowdid haddii Englishkaaga wax yar ay ku raacaan ABC-da oo su'aalaha basicska aad dadka weydiin kartid waxaa kugula talinayaa inaad qaadatid course-ka ah let's learn English with Anna marka hore aan soo fiirino level 1 iyo casharada ku jiraan level 1 markii aad ku dhifatid shaashad noocan ku soo bixi doonta wax yar hoos u dago si aad u heshid casharada waa kuwana casharada lesson 1 lesson 2 lesson 3 and so on sidoo kale ma og tahay in videoskan ayagoo sidooda oo dhammaystiran aad ka heli kartid YouTube-ka laakiin sababta aan YouTube kugu dirin oo aan website ku barayo waxay tahay website-ku wuxuu leeyahay features aan YouTube-ka ka heli karin maxaa ka mid ah isla fiirino tusaale ahaan lesson 1 aan ku dhufsaday qaybtaas aa u jeediin waa video oo ilaa iyo 5 daqiiqo soconaya waa lesson 1 cashirkiisii featureska uu leeyahay oo san YouTube-ka lahayn maxaa waaye cashirkan haddii aad u baahdo waxaa ku daawan karaa offline sidee waa soo degsanaysaa qaybtaas ay ku qoran tahay direct link ayaa ku dhufanaysaa kadib waxaad dooran kartaa quality-ga aad rabto video inaad ku soo dejisid kaliya waa ku dhufanaysaa kadibna wuxuu bilaabayaa inuu kuu soo dejiyo featureska kale uu leeyahay maxaa ka mid ah tusaale ahaan level 1 cashirkiisa koowaad aa maanta soo qaadatay cashirka koowaad wuxuu leeyahay sidoo kale ted speaking practice uu leeyahay speaking practice uu leeyahay oo aad ku baraadkeyn kartid hadalka sidoo kale wuxuu leeyahay pronunciation halkaas cashir ayaa wuxuu sii wataa intaan video intaas waxaa ku sii dheer qayb conversation ah wada sheekeysi oo ilaa iyo 30 second soconayo mar walba level kasta markii aad casharada sii cashirba cashir ka dambe aad sii qaadanaysid dabcan conversation-ku wuu sii badan doonaa laakiin hadda maadaama aad tahay bilow ma lagaa badinayo kaliya halahan oo conversation ayaa qaadanaysaa conversation-ka waa kana waa daaran kartaa markii aad daaratid asiga oo qoraal ahna halkan ayuu kugu qoran yahay Pete iyo Anna sheekeysanayaan su'aalahoodii wuxuu waa kuwana erayga aan fahmi weysana translator-ka la aad intaas waxaa ku sii dheer wuxuu leeyahay quiz listening quiz lesson 1 welcome waa cashirka magaciisa welcome quiz-ka ku dhufanaysaa dabcan cashirka markaad soo dhamaysatid pronunciation-kii wixii dhan aad soo qaadatid kadib ayaa quiz-ka imaanaysaa quiz-ka qaabkan u shaqeynaya waxaa lagu weydiinayaa su'aal quiz-kana qaabkaas u shaqeyn doonaa markaan asla fiirino let's learn English with Anna wax yar uu ka duwan yahay laakiin waa sidii qaybtan dadka wax yar xoogaa fahmayaan ayaa qaadan karaan oo yani level 1 ku wax yar ka sareeya
qaybtan waa 40 cashir waa sidoo kaleeteed aan ku dhufano cashirka koowaad tusaale ahaan sidaa isla ogeyn qaybtan waa video direct linkiga waxbaa laga soo dejiyaa hoos u soo dego wax yar warqadan macalinka ayaa iskale ka gudub waxa uu leeyahay quiz direct ah quiz toos ah ayaa qaadan kartaa start quiz aa leedahay quizkan waa qoraal ilaa iyo 4 su'aal lagu weydiinaya oo aad ku ogaanaysid heerka fahamkaaga ee cashirka aad soo qaadatay and so on markii aad soo dhamaystid let's learn English with Anna level 1 kadib waxa ku xigi doona level 2 oo tabcan ka sareeya level 1 kii hadii aad soo gashid waxa arki kartaa in casharadii wax yar ay horumar sameeyeen salaana cashir koowaad waa kana qaybtan waa videogi linkigaas waa ka degsan kartaa sheetkan ka soo gudub waxa kaaga bilaabanaya conversation ka soo ogeyn level 1 ka cashirkooda wuxuu soconayaa 30 second halkan wuxuu soconayaa ilaa iyo 4 daqiiqo sidiisa la mid ahna wada sheekaysiga oo qoraal ah halkan kugu qoran yahay intaas waxaa ku sii dheer ereyada usleeyahay wuu cusub yahay wuxuu kaaga dhigayaa far bold ah sida halkan ka arki kartiinba cashirka waa uu dheer yahay wax yar conversationka ilaan 4 daqiiqo la hadlaya conversationkaas markaa soo dhameysato kadib sidoo kale wuxuu leeyahay quiz aad imtixaan iskaga qaadi kartid tabahantii koorskan waa koors dahabi ah oo inta badan dadku aysan ka warqabin aniga dadka qaar waxaa laga yaabaa inaan luuqa uga sheegay laakiin markii aan arkay faa'iidadiisa waxaan go'aansaday inaan dadka oo dhan la wadaago طبعا haddii aad weli ku wareersan tahay meesha aad ka bilaabi lahayd waxaa kugula talinaya inaa meesha ugu horeysa kasoo bilaawdid si ay kugu noqoto refreshment okay intaas haddii aan ku dhammeeno qaybta beginnerka haddii aan u imaano qaybta intermediate-ka cashir English ah ma lagu baraayo markan waxay sameynayaan cashiro mawduuciya ka hadlayaan intermediate levelka yacni waxaa waaya qofkan markaan wuu hadli karaa kaliya wuxuu u baahan yahay inuu ereyo cusub barto iyo grammar inta waxay ku sameeyaan marka categories qof walba iyo category-gu jecel yahay ayuu geli karaa tusaalahan haddii aad xiisaysid caafimaadka iyo qaab nololeedka lifestyle-ka waa ku dhufsan kartaa intaa kadib intermediate-ka waxa uu dadka kala dheer yahay wuxuu leeyahay qayb article ah article-daas aa akhrin kartaa episodes uu leeyahay episode-yadan waa dhegeysan kartaa sidoo kale waana up to date sidaa ujeediin markan ugu dambeeya waxay soo dhigeen 2 January 2025 waa sanadka cusub hadda waa dhegeysan kartaa sidaas la mid ahna codka waa la degi kartaa markan waxaa ka haray qoraalkii maxaa yeelay waxaa tahay qof intermediate ah waxaa isku dayaysaa inaad adiga fahamtid koorsadan waxay aad ugu fiican tahay dadka beginnerka ah oo bilowga ah maxaa yeelay qaybta oo beginnerka aad u kala baxsan yihiin halka markii intermediate soo gaaro lagaaga baahan yahay inaad adiga resources kala raadsatid sidaas la mid ah waxay leedahay podcastigan website-kan waa ka dhegeysan kartaa YouTube waa ka heli kartaa podcast-yada waa kuwan waa up to date kan ugu dambeeyay 4 January la soo dhigay waa ku dhufsan kartaa sidoo kale tad waa dhegeysan kartaa podcast-yada waxay soconayaan ilaa iyo nus saac dhegeysigooda aad u fiican tahay sidoo kale application aad ku xifdin kartid ereyada waa laba application Anki ama Quizlet anaha maanta waxaan tusayaa qaabka loo isticmaalo Quizlet hadda ka hor waa idin sheegay application-kan laakiin waxaa arkay in dadka isticmaalkiisa aysan wada fahamsanayn aad u fudud yahay waxay raadin tusaya isticmaalkiisa marka hore Play Store-ka kala soo degaysa ama App Store-ka application-ka soo furanaysa wuxuu ku weydiinayaa inaad sign up dhahdid ama log in haddii ciwaan hore u lahayd haddii aadan u lahayn sidoo kale waxaa dhigi kartaa continue with Google ana hadda waa soo sameynaya waa isku soo laabanayna marka aad soo dooratid akoonka aad rabtid inaad kusoo gashid wuxuu ku weydiinayaa dhalashadaada iyo emailka okay marka inta soo buuxisid wuxuu ku weydiinayaa subject-iga aad rabtid inaad ka baratid meesha waa iska cancel kartaa qaybtaana ku geenayaa Quizlet-ka qaybna lacag laga bixiyaa qaybna waa free anaga waxaa naga badan qaybta free-ga ah ereyada aad baranaysid laba mid noqonaysa marka in adi ereyo cusub oo hadda soo baratay ku xareysatid ama ereyo hore u jiray oo qof soo diyaariyay inaad baratid labadaba waa sameyn kartaa hadda waxaa isla fiirinaynaa qaabkii aad wax uga baran lahayd ereyo uu qof hore u diyaariyay qaybta search-ga waxaa ku dhufanaysaa waxaa ku qoraynaa English words okay inta kadib waxaa ku soo bixi doona dadkii waxa ay diyaariyeen sidoo kale waxaa ogaan kartaa meeqa qofooda baratay ereyadan tusaale ahaan iyo meeqa ereya ku jirto tusaalahan qofka ugu horeeyo Anna Maria la dhaho qofkan wuxuu soo dhigay 247 erey 247 erey uu soo dhigay waxaa erayadan bartay dad gaaraya ilaa 30 qofood dadka oo bartay erayadan korkaas ka arki kartaa qofkan wuxuu soo dhigay 403 erey weli qof barata ma lahan qofkan kale wuxuu soo dhigay xataa adiga kuwa qortid waa shargarayn kartaa haddii aad u baahan tahay okay qaabkee u baranaysaa marka okay tusaale ahaan hadda hal mid isla furaynaa waxaa furaynaa qofkan 28 erey soo qoray markaad ku dhufatid waxaa ku soo bixi doona waji noocan ah waxaa haysataa 4 option flashcard ahaan inaad u baratid inaad qaab kale u baratid imtixaan iskaga qaadan kartaa ama match aan isla fiirino qaybta flashcard-ka iyo sida ay u shaqeyso tusaalahan flashcard-ka ku dhufanaysaa waxaa ku soo baxaya ereyga tusaalahan waa update
updates micnihiisa ma taqaanaa haddii aad taqaanid waa sheegaysaa si aad u hubsatid jawaabtaada inay sax tahay in kale waa ku dhufanaysaa ereyga waxa kuu soo baxayo qeexitaankii tusaalahaan hadda qofkan update wuxuu dhahay to add the most recent information to something haddii aad ereyga taqaanid oo jawaabtaada ay kuu saxan tahay waxaad dhihi kartaa intaa qabatid aad jiidaysaa dhanka waxaa u jiidaysaa midigta ah waxay ka dhigan tahay ereygan horaan u aqaanaa okay haddii ereyga aadan aqaanin waad jiidaysaa waxaad geenaysaa qaybta laftiga wuxuu kusoo qorayaa ujeedin still learning weli waa baranayaa ereyga labaad reply waa ku dhufanaysaa qeexitaan ku siinayaa haddii ereyga anaad taqaanid waan English to English waa dad waxa ay soo diyaariyeen haddii aad ka shakisay dadka waxaa laga yaabaa dadka wax sax inayna soo diyaarin ama qofkan qaab uu asiga u fahmayo inuu u qortay waxaa laga yaabaa inaad dhihaysid ani erayadan qof kala soo qortay qofkaas qaabku asi wax u fahmayo u soo qoray anigu waxaa rabaa inaa erayo cusub oo aniga aa bartay inaa application ku qorto qaabkee u qoranaya haddaa ku tusaya marka sidoo kale waxaa laga yaabaa erayada qaar inaadan lagu kalsoonaan karin maxaa yeele qofkan waxa soo qoray waa qof bin aadan ah qof ka jegareynuusana ma lahan okay adi erayada aa maalmaha barato oo aad ka barato videoskayga ama videos kaleeteed qaabkee ugu xareysan kartaa waxaa soo furanaysaa qaybtas pluska hoos ku qoran ayaa ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid haddii aad rabtid si aadan ugu wareerin folder samaysanaysaa ama flashcard set haddii aadan folder u baahnaynin kaliya flashcard set ka bilow ku dhufso qaybtas kor waxaa ku qoraysaa subjectiga ama magaca flashcardka aad rabtid inaad u baxsatid anaga tusaale ahaan askaga qoran oo English ku qoranaynaa okay halkan waxaa kuu bilaabanaya marka flashcardyadii erayadii aa maanta soo baratay inaa halkan ku qortid tusaale ahaan erayga aa maanta soo bartay waxaa waaye let's say window shopping asaa wuxuu ku siinayaa marka ikhtiraxaad ku siinaya waxbuu kuu soo jeedinaya hadda waa kana window shopping ereygaana tusaale ahaan waxaa kasoo baratay mid kamid videoskayga horaan usoo sharxay window shopping waxa uu ahaa window shopping waxaa waa inaad tagtid meel dukaan ama meel mool ah oo aadan waxba kasoo gadan keliya miyaaradaha kasoo daawatid miyaarada dhexdeeda wax ku jira aad daawatid saas irid aa ugu marmartay waxaa loo yaqaanaa window shopping okay window shopping aa soo baratay haddii aad tahay qof intermediate ah oo English to English inuu isticmaalo rabo wuxuu ku siinayaa qeexitaano haddii qeexitaankaas aad fahmaysid ku qoro haddii aadan fahmaynin af Soomaaliga aad fahmaysid adiga ku qoro looking at items in stores without buying them okay tusaale ahaan qeexitaankaaga waa soo qoratay sidoo kale waxaa kuu soo jeedinaya inaad ku darsatid tusaale ahaan si aad erayada ugu baratid context oo hadhow ereygii uusan kaaga dhumin isticmaalkiisana aad hore u baratid tusaale ahaan hadda anaga waxaa leenahay I like to do window shopping waxaan jeclahay inaan sameeyo window shopping and so on ereyga koowaadaan barana maanta waa kaa ereyga labaad meeshaan ku qoranaysaa and so on ereyada markii aad qoratid intaa rabtid sii qoran kartaa halkan waa hal flashcard halkan kale waa hal flashcard haddii aad rabtid waa ka badsan kartaa inta erey maanta aad baratay ee halkaas ku qoranaysaa markii ereyadaada ay kuu dhammaadaan qaybtas koree saxda ah ayaa taabanaysaa hadda halkan wuxuu leeyahay flashcardya meesha i yaalan ee tahay inaa buuxiyo okay hadda waa soo buuxinayna oo isku soo laabanayna haddaan ereyada waa soo buuxiyey qaybtas koree saxda ah ayaan taabanayaa flashcardkeyga wuu ii samaysan yahay haddii aad rabtid setka aad samaystid inaad qof la shargaraysid whatsappka ku shargarayn kartaa ama classa ku diri kartaa okay flashcardka aad sameeyey waa kana anuna waa isla fiirinaynaa flashcardka markii aad ku dhufatid waa sida uun window shopping ereygan ma aqaanaa jawaabtaa fiirinaysaa haddii jawaabtaa sax tahay waa aqaanaa ma aqaani sidaas oo kala qaybinaysaa applicationka marka haddii aad marka ugu horeysa soo gashid sidee ku heli kartaa flashcardyadii adi aa samaysay applicationka wuxuu qabaa qayb hoose oo library ay ku qoran tahay waa ku dhufanaysaa librarygan waxaa ka heli kartaa flashcardyadii aad soo baratay oo soo akhrisay plus flashcardkii adiga aa samaysay flashcardka aniga sameeyey waa kana English aa iigu qoran waa kana waa ku dhufsan karaa flashcardyadan waa kuwii aan hadda soo fiirinaynay 2008 iyo 2047 kaaga haddii aad rabto waa ku dhufsan kartaa haddii aad rabtid imtixaan iska qaadi kartaa maaja ciyaari kartaa sidan weligaa ma hilmaamin doontid ereyga haddii aad sidan samaysid oo maalintii ama labadii maalinba hal mar aad soo gashid oo flashcardkaas aad ciyaartid ma laga yaabo ereyga inuu kaa dhumo waxaa laga yaabaa hadda inaad su-aal kale isweydiinayso oo ah maanta 4 erey soo bartay 4 erey kasto ma flashcard u sameeyaa maya flashcardkii hore kuugu samaysnaa ayaa edit intaa dhahdo ayaa waxaa ku darsan kartaa ereyo cusub tusaale ahaan maalinta kood waxaa soo bartay 5 erey soo maahan maalinta labaad dana 5 aa bartay
waxaa rabaa inaa halkan ku qoro sidee ugu qoraya marka hore flashcardkaaga soo furo oo adiga samaysatay kadib saddexdaas dhibic ee kor saaran ku dhufo markaa ku dhufatid wuxuu leeyahay option ah edit inaa edit garayn kartid sidoo kaleeta download offline uu leeyahay internet la'aan aa akhrisan kartaa edit aa dhihi kartaa edit markaa dhahno waa kana inta ii qorneed waa kana keliya blastas oo buluugta ku dhufanaysaa erey cusub aa baratay definitionkiisa examplekiisa ku darsan kartaa and so on waxaa rajeynayaa inaa fahamteen waa wax aad u fudud insha allah waxaa rajeynaya inaa ka wada faa'iidaysan doontiin sidoo kaleetana keliya erey english ma ahan xataa ardayda caafimaadka bartaan iskuulleyda xataa waxaa laga yaabaa inaad yani definitionadeeda halkan aa ku xiraysan kartid haddii aad ka wahsanaysid buugga mobilkaaga keliya inta soo qabsatid aa ka akhrisan kartid markaana waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid oo halkeen ka helaa erayo cusub oo aan barto aaday u fududahay erayo cusub inaad baratid tusaalahan waxaad daawan kartaa videoska aniga aan sameeyo waxaa kaaga soo bixi doona insha allah erayo fara badan sidoo kale tad waxaad daawan kartaa channelskan meesha aan kuugu soo taxay oo ugu horeeyo MSA ama Easter Animated kanaalkan wax hal mar ka badan aad idiin soo sharxay insha allah waxaa rajeynaya inaad adinkana ka wada bogan doontaan kanaalska noocan haddii aad daawatid keliya ma ka baran doontid erayo cusub sidoo kale tad waxaad horumarin doontaa fahamkaaga iyo weliba akhrintaada maadaama channelka uu leeyahay subtitle markaana waxaa soo gaarnay qaybtii hadalka dad badan oo adinkeeda ka mid a waxay weydiinayeen applicationkii aan isku baranay ani iyo Nisha applicationkaas isku baranay marka hore waxaa la dhihi jiray Open Talk kadibna waxaa loo bedelay Badi Talk haddaba hadda waa idinka soo baroobeeyey applicationka markii aan baroobeeyey waxaan arkay applicationka hadda wuxuu isku bedelay application isbarasho ah oo dating anaga xilligaan isticmaalaynay 2019 waxa uu ahaan jiray application lagu baraatikeeyo luqadda laakiin hadda dadka badanaa aan soo arkay waxay u badnaayeen dad u imaaday dating sidaa daraadeed ma idiin soo jeedinayo inaa isticmaashin applicationkaas bedelkiis waxaa isticmaali kartaa Hello Talk oo aan isleeyahay waa mid ka mid a applicationada ugu fiican ee aad ku baraatikin kartid luqad walba oo aad rabtid waxaana fiican inaad raasatid dad aad isku gool tihiin anyways videogeena maanta meesha soo ku egyahay waxaa rajeynaya inaad wax badan ka faa'iideen videogan fadlan ha hilmaamin inaad video la garaysid channel subscribe dhahdid una share garaysid asxaabtaada jecel inaad bartaan luqadda Englishka and as always that's it for today see you in my next video bye